This is GIIRE by Tech Consulting IT. cashirkan waa cashirkii 13aad. cashirkan wuxuu ka hadlayaa how to transfer file explorer in Windows 10. How to transfer file explorer in Windows 10. And if you have external drive to transfer it. Marka cashirkan waxa weeyaan computerkaada Windows 7 weeyaan. waxaa rabtaa inaad faalashaada ama data fileka kugu jiro ama datahaada in aad transfer ku samaysid external drive ama driver kale. marka ugu horeyso notepad-kan la soo baxayaa waa qorayaa. Okay, notepad markaan la soo baxo, let me change the fonts. Fontkan bedelayaa. halkan waxaan ka dhigayaa 18. Okay, marka cashirkan ka hadlayo qofku koowaad waxaa waa how to transfer file explorer to Windows 10. waxaa jiro waxyaalo badan jiro oo aad markaa rabti inaad filekaada transfer ku samaysid to external drive ama driverka kale aa haysatid. dadka qaarkood waxaa loogu yaraa how to migrate Windows file explorer. marka dadka qaarkood waxay ugu yaraan how to migrate Windows file explorer. migrate marka waxaa laga wadaa computer cusub markaa rabtid computerkaada duuga ahaa aa rabtid inaad computerka cusub gelisid weeyaan. marka labo sina qaybqayb marka ani migrate ma samaynaye external driver aan rabaa inaan ku shubto without using Windows easy transfer. only Windows easy waxaa isticmaalo Windows 7 and does that without using Windows without using the Windows or without using an PC remover to transfer only Windows 10. marka tan waxaa waaye Windows 7 adoo aad u baahneen easy transfer waa tool waaye oo Windows 10 ku jiro oo free ku ah isticmaali kartid. kana waxaa waaye Windows 10 oo free ku ahayn aad gadanaysid. tusaale ahaan soo qaadayaa tusinayaa halkan fiiriye halkan PC remover express waa $30 waaye. marka
meesha hadda kuwan waxay leeyihiin haddana waa $50 marka waxyaala waa tool fiican waaye laakiin lacag waa marka hadda ana waxaan rabaa inaan tuso saa free ugu heleed kow waxaan ka bilaabayaa adikoo la socdo waxaan ka bilaabayaa halkaasaa imaanaysaa ay ku qoran tahay waxaa ku qoran saddexa ii furan paginaan sameynayay kaadi iska xiraaya halka ay ku qoran tahay file explorekan waxaa iskale window 10 haddaa uu ku jiro computerkaada window 10 file explorer arkaysaa haddii aa wadatid window 7 file explorer meesha hadda ay ka tahay file meesha ay ka tahay filekaas halkaas waxay noqonaysaa window explorer meeshaas waa meesha aragtiin wax ka bedesho meeshaan aan rabaa inaan wax idinka tuso adikoo raalli ah computerka wuxuu qaybsayaa pc iyo mac marka pc-ga waa qaybtan waa pc keliya ka hadlayaa pc-na ma micneynayo macna ma micneynayo waqti kale ay qaadanaysaa right click aan leeyahay kanaan furanayaa markaan furto waxaan tegayaa meesha ay ku qoran tahay this pc waa taabanayaa markaan taabto waxaa iisoo baxayo wax window c window 7 haddaa wata inta wuxuu leeyahay local c drive waay kanna waa local maaha waa local c drive like window c window 10 operationka uu bixeen OS-ka halkaasaa ku dhufanaysaa double click aan leedahay optionadaana kuu soo baxaya arkaysid userka meesha highlight gareynaya ujeedaan click leedahay double click qofka computerka isticmaalaya ama fileka aa rabti inaad bedeshid magaciisa raadinaysa aniga sajaas ahaan waa kana magacaana raadinaya waxaan rabaa marka waxaan oo dhan data igu jiro inaan ku transfer gareeyo ma external hard drive-ka aan igu jiro computerka kana minimum dhahaya asaga haddana furaya external driverkayga aan ka hadlaya marka ina tusinaya markaan pc taga hadda waa kana halkaas ku aragtaan external drive-kaas double click aan leeyahay haddana halkaasaan double click leeyahay right click aan leeyahay new file aan leeyahay new filekaas waxaan ku qoraa fileka amos aan ku qoray aan double click leeyahay empty waaye waa soo qaadanayaa waa yarana halkaana keenayaa kii kale haddana soo qabanayaa asagana waa yareynayaa labada file waa isbarag dhigaa marka waa isgarab dhigayaa labadan file waxaan waa wax basiga aa u baahan tahay in aad rabtid inaad waxba lagaaga qaadin ama adi aad samaysan kartid qofka oo waxaan ka hadlayaa computerka iisana ama IT-ga inuu jecel IT noqdo ama hadduu ahaado application ama networking ama hadduu ahaado maxay dayrin inuu shaqeeyo ama accounting qof waxaan ka hadlaa computerkiisa intuu wax ka bedel si ugu shuban karo computerkiisa waxa ku jiro driverka kale uu leeyahay external driverka kale uu leeyahay okay kan waxa uu jeedaan transitkaas ku qoran transcankaas waa kana waa windowgii localkayga waaye halkaasaan tegayaa desktopka waxa igu jiro haddaan rabo quickest way waa copy gareynayaa halkaana imaanaya control v le taabanaya bas oo shortkaada intaan ilaa post ama paste aan dhihi lahaa waa kaasaa markuu isdaaqal gareeyo waa kaasaa wixii igu jira desktopka wuxuu igu jiraan externalkayga igu jiraan external drive-ka halkan wixii igu jirana waa kana labadaba kana waa computerka isticmaalaya localka ah wixii igu jira aan transfer gareey kana waa external driverkan ku transfer gareey marka uma baahnid qaybihii aan kasoo hadlay aan dhahay qaybtan oo kale uma baahnid window easy transfer uma baahnid pc remover uma baahnid this is waxa waaye manual waa adaa samaysanayso haddii aad taqaanid laakiin haddaad aqoon waa kana hadda waa baranaysaa waa wax dhib badan ma aha safe wax dhib badan ma aha ma fahamtay halkaas ay fileka ay tahay
right click leedahay meeshay ku qoran tahay file explore haddaa windows 7 isticmaalaysa meeshaas ay fileka ku qoran tahay waxay noqonaysaa window explore haddaba waa kaasaa waa wax oo easy ah oo adiga aad samaysan kartid waxyaalaha basic ah oo computerkaada inaa waxa kugu jiro computerka lacala wuxuu kaa noqday computer old ama driverka scratch waxaa noqday corrupt oo yani driverka kaa xumaaday corrupt waxa markuu driverka xumaado artaa wax kugu jiro inaa ka baxsatid aad gashatid ama mashiinka kale haysid ama external drive ha noqdo ama pc kale ha noqdo ama xitaa waxaa ku samayn kartaa usb oo markin oo flash usb flash laftigeeda haddaa haysatid aad ku transgaraynaysid meesha aan ku tusan leh raacaysaa bis halkaasaa tegaysaa make sure usb daada inaad arki kartid marka ana haja waxaan isticmaalaa external drive saas ula socda waa kaasaa intaas ay tusinaya is quickest way aad ku baran kartid this is no basic stuff weeyaan wax adiga aragtid inaad samaysatid waxaan rabaa inaan anigu kuu faa'iideeyo oo wax adiga xitaa dad kale haddaa rabtid xitaa inaad u faa'iideyn kartid waa wax dadka ay lacagta looga qaato waa wax service la qabto waa laakiin waa samaysan kartaa haddii aa interest aa ku tahay nin IT hataan ka hadlayaa qofkii aan xoogaa savvy ah ama computer wax ka garanayn taas waa gooni waxaan ka hadlaa qofku wax yaqaano oo computerka hadda company uu shaqeeyo oo rabo filekiisa oo rabo inuu bedesho ama rabo qof inuu barto computerka sida wax loogu transfer gareeyo